waxaa jirta waxyaalo wanaagsan, acmaal wanaagsan loo baahan yahay qofka sooman inuu sameeyo, ajir badanna uu ku helayo. qaar ka mid ahna haddaa samaysid ducada nebiga kuugu dhacayso. haddaba acmaashaas maxay yihiin? goormaana la sameeyaa? sideena loo sameeyaa? رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وجهتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة دي شناد وبرنامجكي بشهر رمضان أحكام تيانا ولا ليال أفرتي حلقة الله صورنا في وحان كسو شيكيني صونك فضليس دور طبعا فائدة أشيكني صونك حلقة دي كوبان حلقة لبات وحان كسو شيكيني صونك واجبكو ياهي أنيقا مسدد قارو واجبكو يا مجرى تنسد حادنا وحان كسو شيكيني صونك تيرركو كتاقين يهي محاو قريقا روفكيس سقفيس وحاها tiirarkuu ku taagay oo haddaa mid ka mid a ka tagta soonkaaga waxba ka jireen maxaa waay. tan afraadna waxaan kasoo sheekaynay soonka maxaa burinayo. 3 qeybaan u qeybinay. wax bogsiinayo oo kafaara lagaaga baahan yahay, waxaad gudaysid, iyo waxa jirkaa yaraanaya. ugu dambeyntiina 2 su-aalaan ku weydiiyey oo ku saabsan xalaqadaas. haddaa ka jawaabtayna giftigaaga waa helaysaa, haddaadan ka jawaabina kasoo jawaab insha allah tacaala. maantana waxaan ka hadlaynaa sunnooyinka soonka, aadaabi soom, waxyaalo qaarkooda loo baahan yahay qofka inuu sameeyo, uu hadduu sameeyo ajir badan ku helaayo, ziyaada macna extra ku helaysid. nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam uu ku dadaali jiray, bal qaarkooda noo sheegay qofka muslimka inuu sameeyo, hadduu sameeyo waxuu ka helaaya, wax fiican uu ku helaaya. haddaba aadaabtaas maxay tahay? arrinta ugu horeyso oo loo baahan yahay qofka sooman inuu ku dadaalo waxaa waaye as-suxuur. qofka inuu saxuurto. waxaan suxuur u dhahaa dadka qaarkooda ma suxuurtaan. wuxuu ku leeyahay haddaan soo kaco waqtigaas cunta ma cuni kari, waqtigaas waa igu adag tahay, ama hurdada waqtigaas kama soo kici kari. sax waaye, aniba haddaan soo kaco dhibay igu tahay inaan saxuurto. waxaa samaysaa marka haba yaraatee koob biyaba allaha ka dhigo ama koob caana allaha ka dhigo, suxuurta waa aaday u fiican tahay. wax mataqaanaa nebi maxamed nebigii ku jeclaa khayrka noo keenay sala allahu calayhi wasalam ku salli wuxuu yidhi tasaxaruu, war saxuurta. maxaa dhacay? fa ina fi suxuuri, suxuurta la cunaayo barakaa ku jirto. suxuurta haddaa cunto haba kuu yaraatee barakaa helaysaa. barakada maxay noqonaysaa? ilaah inuu kuu barakeeyo, jismiga kuu barakeeyo, waxaa cunto inuu ilaahay kuu barakeeyo, sidaadi kale inuu ilaahay kuu barakeeyo. almuhim barakaa helaysaa. haba kuu yaraataba koob biiba allah ka dhigo, 3 timir iyo biyo allah ka dhigo, haaf caana allah ka dhigo, gabal roti aad guusad allah ka dhigo. saxuur la-aan ha soomin adigoo ku camal falaysid xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam, sunnada nabigana raacaysid, barakadana saa ku heshid. tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka. ilaahayo barakada nawaafaji. aadaabta labaada loo baahan inaad samaysid waxaa waaye tacjiil alfutuur. afurka dadeji. markii la adimo hore ka afur. dadka qaarkooda wuxuu ku leeyahay maya waa 10 daqiiqo kalaan ku dara. maxaa ugu daraysaa? yaa ku dar ku dhah, yaa kaa dalbaday? rasuul sal allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi ummadayda maa zaalat ummatii fii khayr. ummatu maxamed khayr ayay ku sugan tahay maadaam ay afurka dadejinayso, saxuurtana dib ay u dhigayso. saxuuro soomaytii labaad waqtiga u dambeysay salaada soo dhowday saxuuro, afurkana dadeji. taas macnaheeda ma iyadoo la adimay inaa cuntid, maya markii la adimaba cunta timirtaada afka alla hore ka gasho, timir ama biyo. almuhim afura loo baahan yahay. sunnada nabiga sal alay wasalam waxay ahayd afurka in la dadejiyo. sidaa darteed haddii la adimo hore ka afur, gadaal ha u dhigin, shakiga waxaas iska daa. waqtiga haddaa hobsatay in la adimo hore ka afur. arrinta saddexaad oo lagaaga baahan yahay waxaa waaye cumra sameey. haddaa awoodid inaa cumra aadid tag. rasuulka sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi cumratun fii ramadaan, bisha ramadaan oo lasoo cumraysta waxay la mid tahay xajatun macay. nebi maxamed inaa lasoo xajisiyo kalo. qofkii bisha ramadaan soo cumraysto wuxuu la ajir yahay qof nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam lasoo xajiyo. lasoo cumraysto maaha, lasoo xajiyo kalo. haddaa awoodid dhaqaalaheeda haysid
waqtigeedana aa haysid sharcina aa leedihid tag ha bakhiilin wallaahi ilaahay wax ka khayr badan uu kugu bedelaa adduuniya aakharabo dembi dhaaf iyo ajir badan. aadaabta afaraadoo lagaaga baahan yahay inaad samayso bisha ramadaan waxaa waaye sadaqayso. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa ajwad annaas, qof aada u gacan furan uu ahaa. wa kaana ramadaanka markii la gaaran caaisha waxay leedahay kaana ajwad ka riix lmursal, dabeel la diroo kale u ahaa. waxaa loo baahan bisha ramadaan marka bixi, ha bakhiilin, sadaqayso. ma ogid bisha ramadaan kale inaad gaaraysid. meeqaa ramadaankii hore kula soo soontoo ramadaankan kaa maqan, qabriga hoostiisa galay ama sariirta jiifaan, meeqo way tiro badan yihiin. idan tasadaq, bisha ramadaan markii la gaaro sadaqayso. faamilka iyo qaraabada ka farxi, masaakiinta kale ka farxi, masaajidaha ku sadaqayso, sadaqa jaariya sameey, maalin walba sadaqayso. aadaabta shanaad ama sunnada shanaad ama arinta shanaad oo lagaaga baahan yahay inaad ku dadaashid waxaa bisha ramadaan qur-aanka ilaahay. bisha ramadaan waa bishii qur-aanka waaye, shahrul qur-aan, bishuu ilaahay qur-aanka soo dejiye waaye. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam bishaan shahr qur-aanka wuu khatimi jiray. dadkii hore culummadii hore fatwada iyo muxaadarooyinka iyo waxaas dhan way joojin jireen. imaam maalik wuxuu soo xiri jiray meeshuu ku fatwoonaya cashirka ugu bixinaya wuxuu dhihi jiray bishii qur-aanka waaye. idan waxaa loo baahan yahay bishaan qur-aanka aqriso, jadwal samayso, ku talagal bishaan ugu yaraan 5 mar inaad dhamaysid. haddaadan dhamayn karin 3 mar inaad dhamaysid. haddaadan dhamayn karin ugu yaraan 2 mar inaad dhamaysid. haddaa miskiin tihid oodan wax qabsan karin ugu yaraan 1 mar dhamay, khayr allah ku siiyo. qur-aanka iyo fadaaishiisa ma koobi karno, cajalooyinka hore ayaa aga soo sheekeynaya. ku dadaal qur-aanka. arinta lixaad oo lagaaga baahan yahay waxaa waaye 10 u dambeeya bishaan ku dadaal ina ictikaaftid oo masaajidka joogtid, habeen walba inaad tukatid, saa ku heshid laylatulqadr. laylatulqadr qofkii helo adduunkan waxaa waaye nicmuu helay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu ku dadaali jiray, asigoo nebi ah yuu ku dadaali jiray. 10 u dambeeya wuu ictikaafi jiray. sanadka ugu dambeeyeyna 20 maalmood ayuu ka ictikaafay. sababta mataqaana uu ictikaafayo wuxuu rabay inuu helo laylatulqadr. saxaabada ridwaanullaahi calayhim caaisha waxay dhahaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam 10 u dambeeya markii la gaaro dhexdiisuu dhuuqsan jiray. dhexduu dhuuqsan jiray waxaa laga wadaa ama camalkuu ku dadaali jiray ama xaasaskiisa xataa wuu ka fogaa jiray. sidaa darteed ku dadaal inaa ictikaafid, saa ku heshid laylatulqadr insha allah tacaala. arinta 7aad oo laga rabana waxaa waaye ku dadaal adkaarta. bishaan bil dikri ha kuu noqoto, carabkaaga tarbiyey. intaa wadada saarantihiid, intaa gurigaaga u socotid, markaa masaajidka usoo socotid, gabadha walaashii qaaliga markaa sambuuska dubaysid ama markaa saxuurta karinaysid, waxaad tidhaahaa mataqaanaa subxaana allahi wabixamdi subxaana allahi alcadiim. sambuuskaaga laalaabo subxaana allahi wabixamdi subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdi subxaana allahi alcadiim. cuntaa guraysa subxaana allahi wabixamdi subxaana allahi alcadiim. intaa kami allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aalih, ama allahu akbar kabiira walxamdu lillahi kathiira, ama allahu akbar. rasuul sal ly slam adkaar wuxuu noo sheegay aada u qiimo badan. 4 kelim wuxuu yihi ilaahay markasta uu jeceliya waxaa waaye subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar. idan waxaa lagaaga baahan yahay intaa suumanteed carabkaaga ku mashquuli dikriga, saa ajir badan u heshay. tan 8aadna waxaa waaye dadka caawi. camal kastoo wanaagsan oo samayn kartid sameey. qaraabada xiriiri, qofka miskiinka caawi, diriska caawi. si kale haddaan kuugu dhigo khayr walba oo aad samayn kartid sameey, siduu ilaahay kuu barakeeyo. bil khayraa ku jirtaa, khayrkana badi. tan 9aad ugu muhiimsan ugu qiimaha badan waxaa waaye adducaa. ducayso. bisha ramadaan waa bishii ducada waaye. bisha ramadaan waa bishii la dambi dhaafayay waaye. bisha ramadaan waa bisha dadka naarta laga xoreeyo waaye. nebigana ku salli sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay qofka sooman inuu leeyahay duco aan la soo celinaynin. macnaheeda ma taqaanaa waa la aqbalaa waaye. haddaa jaaniskaas haysatid oo ducadaada la aqbalaayo ka faa'iidayso.
maalmaha kale ma ogid in ducadaada la aqbalaayo laakiin markaa sooman tihid in ducadaada la aqbalaayo الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يا نوشيغ سيدا درتيد انت سومنتي دعيسو بالذات مركا افريسي waxaan kusoo gabagabaynaynaa arrintan sagaalka arrin aan soo sheegnay haddaa ku dadaashid waxaa iska ilaalisay arrintan waa tan tobanaad waay waxun iska ilaali macsiya iska ilaali hadal badan iska ilaali been iska ilaali wax kastoo dembi ah iska ilaali khayr allah ku siiyo waqtigaa ka faa'iidayso aadaabta tobanaad qofka sooman waxaa loo baahan yahay sidii waxa xalaasha aaga soontay biyaha iyo cuntada aaga soonto xalaal kuu ah waxa xaaraamka ka ahne ka soon waxaa ceeb ah wixii xalaashana inaa ka soontid wixii xaraamtana aa ku afurtid xan been isku dir inaa ku jirtid ceeb waaye bisha ramadaan waxaa loo baahan yahay inay kuu noqoto bil tarbiyo bil ku camal fashid wanaaga ayaa loo baahan yahay ugu dambeyntii sidii caadi noo ahaan jirta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su-aalood su-aasha koobaad qofkii saxuurta muxuu helaa waqtiga ugu fiican oo la saxuurtane maxaa waaye su-aasha labaadoo raba inaan ku weydiiyana waxaa waaye goormaa la saxuurtaa waqtiga ugu fiican oo la saxuurtane goormaa waaye kasoo jawaab haddaa jawaabta saxda keentid giftigaaga ama hadiyadaada waad helaysa insha allah tacaala جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم لو هذا سؤال كسو جواب أنا كان سؤال اسويديني أو بحلقة صوت عن كجوابين وحوا قفك صوما محا أبنان إنه سميه ودم بيجيس أن نسقامين وحاجة أعمال ذاتك قارك وذا كبقان إني سميان لكن هدو سميه واحد يبقى لهين نبي سمين جري يبقى لهين هذا أعماش اسمحيهين هذا سيكا لو أدقنا محاواي مباحات الصيام مباديك لو حواي qof haddaan si kale u dhigna waxaa waay qofka sooman maxaa u bannaan inuu sameeyo jazaakum allahu khayra baaraka allah fiikum waa inuu birito iyo qofka sooman maxaa u baahan ilaa biri laga gaarayo ku camal fal walaalaha kalena usii gudbi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله